الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله سيدا دريميسا خطبتين waxay ka hadlaysay mowduuca la xiriira ducada waxaynu ku dooranay waa waqtiyada aynu duruufaysannahay, baahi weyn baynu u qabnaa mar walba iyo waqtigaynu sii baahanay labadaba. abaaraa jira, biyo la-aan iyo madar la-aan baa dadku ka cabanaya, cuduraa jira. dadka qaarkood baa laga yaabaa inaanay aada ugu baraarugsanayn ducada iyo rabbi bariga. marka xoogaa la joogaba mawaadiicda raqaa'iqa ah ee qalbiga dabcinaysa addoonka ilaahay u soo jeedinaysa iyo daliilku wuxuu ka yidhi waa muhiim. waxay qaybtaa hore kaga soo hadalnay ducadu miisaanka ay ku leedahay diinteenna iyo fadliga ay ku leedahay ilaahay agtiisa, iyo siduu nebigu u dhiiriyay calayhi salaatu wassalaam. dadkeennu way jecel yihiin ducada, waa laga yaabaa cid kale iska daayo qof xanuunsanaya inuu kudhaa ii ducee, way ku wanaagsan yihiintaa. laakiin ducada si loo aqbalo, aqbalkeeda iyo ijaabadeedu u dhowaado aadaab bay leedahay. marka mowduuca aynu ku soo dhowaanaynaa waa aadaabta ducada iyo waqtiyada la aqbalo iyo erayada la odhanayo sirta xambaarsan iyo dadka laga ducaysanayo. aadaabta ducada qaarkeed waa waajib, qaarna waa sunni. kuwa waajibkaa waxaa ka mid ah alikhlaasu lilaahi subxaanahu fi ducaa, in ilaahay keligii la baryo. nebi lama raacinayo, welina lama raacinayo, addoon kalena laguma lifaaqayo, jin iyo insi midnaba. ilaahay wuu inagu filan yahay. haddaad ilaahay cid ku lamaanaysa macnaheedu waxa weeye adigoo ilaahay saloogay oo yidhi ilaahay iguma filla, waa in kala lagu sii lifaaqaa. ilaahay iyo hebelow ma taallo. ummadaha shisheeyaa qur-aan ku eedeeyay. waana cibaadana ilaahay keligii unbaa la caabudaa, sida salaada aan cid kale loogu tukan karin ilaahay mooyaane. ducaduna waa saas oo kale. nebiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa, adducaau huwa alcibaada. ducadu iyada laftigeedaaba cibaado ah, cibaadana alluunbaa iska leh. wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin. addoommaha waxaa la faray inay ilaahay keligii daacad saafi uga dhigaan cibaadada. wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada. waa daliilada tilmaamaya rabbi keligii in la baryo aan cid la raacinin. qofkaad maqasho isagoo sidaas samaynayna kala tali oo uga naseexeen. aadaabta waxaa ka mid ah laa yastacjil alcabdu fi istijaabati ducaa, inaanu qofku degdegsanin ducada aqbalkeeda. nebiguna calayhi salaatu wasalaam taa wuu ka digo wuxuu yihi yustajaabu liaxadikum maa lam yacjil yaquulu dacawtu falam yustajab lii. mid idinka mida ducadiisa waa la aqbalaya haddaanu degdegin oo aanu odhan ilaahay baanu barino waxba waa naga aqbali laaya. adiga edab darro samaynaya dib isugu noqo, ilaahay ballankiisii kama bixina. aadaabta waxaa ka mid a wax dembiya inaanid ilaahay baryin. haddaad dulmi ku socoto, dadka dulmi ku abaarayso ama qaraabo goysnimo ay noqoto, aqbal male ducadaas. laa yazaalu yustajaabu lilcabdi maa lam yadcu biithmin aw qadiicati raxim. qofka ducada waa laga aqbalayaa buu lehy rasuulku sala allahu calayhi wasalam haddaanu dembi ilaahay baryin oo aanu qaraabo goysnimona ku darin. macnaheedu waxa weeyaan dad xaq ku lahaa buu gardarro ku habaaraya. aadaabta waxaa ka mid ah an yakuuna xaadira alqalbi xaala adducaa'i muqbilan calaa rabbi cinda munaajaatihi fii khushuucin wa sakiina wa muuqinan alijaaba. waa inuu ilaahay u soo jeedaayo qofku isagoo xawilan carabkiisu waa inaanu ducada ka wadin, laakiin waa inuu ilaahay u soo jeedaa. maxaad u malaynaysaa bani aadam markaad codsi u qadimayso adoo soo wada jeedo indhahaagu eegayaan baad qofkaa wax weydiisataa. laakiin adigoo telefoon ku hadlaya ama meel u jeeda dee waxma weydiisat. ilaahay weynaa maxaad u malaysa subxaana wa tacaala. nebigu waxa uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiid xasana, udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba. ilaahay barya idinkoo ku kalsoon inuu idin aqbalayo.
واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله وقال إنان إلهي كأقبلين دعاء قف إلهي كسيجيله آدابت الدعاء لو أقبله وحكم إذا تقوى الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي قفكم مركز تو إلهي وعابده مركز تو حارانت إسكدا الدعاء يسأقبل كيد ودوية قفكم كالطاعة بدين أو كعبادة بدين هيبو كالدعاء بدنية أيو كأقبل وقلوانية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مركز اسبدل سميسيدا وححون اسكدا يسايل هينا كادو القاضي يا دبك marka wadadii ducada loo maray hadaa dhagaxaan dhigayso ilaahay wuxuu ku yiri aqbal anna waan ku aqbaliya falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun an aqbala ducada waan u dhawahay horta iyagu hay aqbaleen oo hay rumeeyeen laakiin ka ilaahay ku gacan sayda maxoog buu wax kaga qaadaya aadaabta waxa kamid ah qofku inuu xalaal cun yahay casrigan iyo baabkaana waad garanaysa uu ka sii digay nabigu waanu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam xaaraanta in la macaansan doono aakhiru zamaanka qalbigu markuu qombabu qallalo aakhiru zamaanka waxa ku dhacaya dadka xaaraanta iyo xalaashu inay isugu mid noqdaan xadiidkii saxiixu lbukhaari ku sugnaa rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam layaatiyanna cala annaasi zamaanu laa yubaali almaru bima akhada almaal am min alxalaali am min xaraam waxaa dadka iman doona waqti oo qofku aan u aaba yeelayn xooluhu cunayo xalaal bay ka yimaadeen mise xaaraan waxaynu ku kala duwannahay qofka aan diinta lahayn aan ilaahay rumaysnayn dariiqadu xoolaha u soo saaray iyayna waynu kala duwannahay innagu waxaynu eegnaa baabkaa la yidhaha ma xalaal baa mise waa xaraam weliba waxaa waajiba qofku intaanu tallaabada qaadin markuu intaaj samaynayo wax soo saarayo inuu ta'siil raadiyo oo culimada wax weydiiyo maruu xoolihii ururiyay oo bartanka ugu jiraabay su'aala ku weydiinayaan maba ka fuqayaba wuu macaasanayaa shaydaanka u qurxinaya waajibku waxa weeye intaana tallaabo qaadin inaad istishaara samayso ama istiftaad masalada u raadiso sharcigu waxa uu ka yiri marka cudurkaas iman doona buu nabigu yiri aakhiru zamaanka hadiidkii saxiixa ah dheeraa wuxuu nabigu ku dhiirigeliyay ummadda inay ku daydaan rususha ilaahay amarka ilaahayna qaataan wuxuu rasuulada farun buu idinkana idin faray camal wanaagsan iyo cunno wanaagsan kuluu min at-tayyibaati wa'maluu saalih ilaahay camal wanaagsan ugu cibaadaysta oo isaga u gaara cunno wanaagsan oo xalaalana cuna nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka dheer waxa uu ka waramay saxiix muslim ku sugan qoftee waqtigii ducada la aqbalayay marayo baahan safar ku jira basaasay ilaahay kaligii baryayo yaa allah laho waabu ku celcelinaya ومطعمه حرام ومشربه وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك لكن وحي لغو سو كوريا بي ku soo koriyay dharkiisa iyo doonigiisa iyo wax oo dhamay waa wada xaraam buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka arintaasina waxay ka mid tahay aadaabta ducada faralka ah musiibadayna haystay ka mid tahay dadku ilaahay bay barayaan way ku celcelinayaan waxba laga ma aqbalayaba waa qodaxdana ku taagan qofka ilaa uu iska fujiyana waxba laga aqbalay maayo hadii waxba laga aqbalay waayana waa musiibo weyn nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam cudurkaas qofku hadduu xaaraan shaqeeyay la caruurtiisiina balaadi gaadhay oo caruurtii baa wax laga aqbali laaya marka uu soo ururiyay laaruush buu ka soo ururiyay xoolihii ummaddu u boobay dadkii uu khiyaamay iyo xeelad waxoodii kaga qaadaya waa riba cune ilaahayna yaa allah buu leeyahay uu baraya nabigu wuxuu leeyahay iska joog hortaysa soo safee laabudda min at-takhallus min al-maal al-haram si wax lagaaga aqbalo horta xoolaha xaaraanta ka soo takhallus sida looga takhallusaana waxa weeye ummadaad ka qaadato iyagu ku celi xataa haday riba tahay ummadun bay ka timidood ka qaaday iyagii ku celiyo danaha guud ku bixi ama dadka baqtiyaya si kadibna adigoo saafiya wax amaaho ilaahayna bari arsaaqal xalaal markaas uu ku bilaabay ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ballankaas aanu ilaahay qaaday meel aan filaynin inuu ka arsaaqi doono aadaabta ducada sunnaha waxa kamida mahadda ilaahay inaad ku bilowdo iyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ducada inaad go'aamiso aanad odhanin ilaahay haddaad doonayso iga aqbal waa nusuusta intaas oo dhan aynu ka soo ururinaynaa
waxaa aadaabta ka mida inuu gacmaha qofku kor u qaado siduu rasuulkuba ahaa sala allahu calayhi wasalam mararka qaarkood baa la arkaya kilinkiladiisa fii xaali libtihaal wakhtiga had iyo jeer ilaahay uu aada u baryayo marka dagaalku bilaabmayo marka abaaruhu jiraan iyo aadaabta waxaa ka mid ah adigoo daahir ah oo ilaahay usoo jeeda subxaana wa tacaala adigoo ogol nicmadu ilaahay ku siiye iyo gefkaad adigu gelayso taana ka garaabaya baahi waa inaad muujisaad ilaahay u baahantay ducada waa inaanad ku xadgudbin oo duco kooban aad ku dadaasho wakhtiyada fadliga badanna waa inaynu ku dadaalo wakhtiyada fadliga badan ee nusuusta ama daliiladu ay ku soo arooreen waxaa ka mid a markaynu sujuudsannahay waa wakhtigu addoonku ilaahay u dhigay halkii xubnihiisa u sharaf badnayd alla daraaddii adaankii aqiimidda dhexdooda habeenka qaybtiisa dambe markaad salaada u kacdo salaatuleylka salaada subax ka hor maalinka jumce saacadaha u dambeeya wakhtigan ay dalxiiskiiyo meelaha ku maqanee maqaaxyaha iyo aynu iska fadhino fursad weyn baa halkaa inagu dhaaftay bal isku day saacadda u dambaysa jumcaha waa wakhtiga saacatulijaabuhu ku jiraa loo rajo badan yahay inaad yaro khalaawayso qofku ama ciyaalkiisu raacaya ama wuxuu ku jiraa safaro ama waxa uu ku jiraa shirar fursaddaa inta ku baraarugto dadka aad bay u yar tahay waxaa ka mid a wakhtigu roobku soo degayo qofku markuu sooman yahay marka uu afurayo habeenka leylatulqadriga maalinta carafa salaadaha dabadooda iyo wakhtiga dagaalku uu bilaabmayo cadowga lala dagaalamayo wakhtiga uu qofku habeenkii ka soo kaco hurdada waxaa jira dad ducadooda la aqbalo uu nebiguna inagu baraarujiyey calayhi salaatu wasalaam ama habaarkooda hadday ku habaarana horay baa laga aqbalaya hadday kuu duceeyaana biidn illaahi horaa loo aqbalaya markaa iska ilaali ducada wanaagsanna ka codso habaarkoodana iska ilaali waxaa ka mid a qofka oo walaalkii u duceeyey isagoo ka maqan waa loo aqbalaya malag baa ag taagana wuxuu leehay aamiin walaka bimil marka walaalkaaga maqan u duceeya isagana iisoo duceedhe dacwat lwaalid lilwalad waalidkii oo waladka u duceeya waa kalaam waalid oo ma hadho qofkii musaafirka ahaa qofkii soomanaa qofkii la dulmiyey isagana habaarkiisa waa la aqbalayaa qofkii madaxda ahaa ee caadilka ahaa caadilna wuxuu ku noqonaya inuu sharciga islaamka dadka ku dhaqo waxaa ka mid a waladka laftiisii ah waladun saalixun yadcuu lahu oo waa loo aqbalayaa markuu waalidkiisa u duceeyo wa dacwatu lmustayqidi min annowm idaa dacaa biadducaa'i alma'huur iyo qofku marka uu soo toosuu ducadii iyo wardigii nabiga ka sugmay calayhi salaatu wasalaam uu akhriyayo aadaabta waxaa ka mid a inaynu ku ducaysano bijawaamici ducaa ducooyinka kooban laakiin gudaha ballaadhan ee qur-aanka iyo sunnada ku sugan lianna fiiha alasraar waxaa ku jira sir dheeraada culamaa ulxadiid waxay isla waafaqsan yihin tajuusu riwaayatu bimacna alxadiid xadiidka macnihiisa waad warin kartaa adigoon ereyadii nabiga soo qaadanin waad odhan kartaa nebigu sidaasuu yidhi calaa macnaa qowli laakiin ducada iyada lama yidhaahdo calaa macnaa qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam lianna dalika sunan waxaa la doonayaa sidii uu nebigu u yidhi inaad u raacdo oo bara bnu caazib asxaabigii la odhanayay nebigu wuxuu ku diiday inuu birasuulika iyo binebiyika labadaa isweydaariye wuxuu ihi binebiyika baan ku idhiyo birasuulika ha ku bedeli sidaasuunu wad waxaa ka mid a ducadaa qur-aan ku sheegana ilahay uhi rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar wuxuu ku ammaanay dadka xajka yimaadee ducadaa ku ducaysanayoo sheegaysa hanweynaan qofku ilaahay buu barayaa adduun iyo aakhiraba ile ilaahay baa adduun iyo aakhira labadaba gacanta ku haya waxaa ka mid a ducaduu nebigu badsan jiray sala allahu calayhi wasalam yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diini ilaaha qalbiyada rogrogow qalbigayga diinta ku sug ilaa wax lagu siiya habaat iyo sugnaanshaa u weyn aana diinta ka duulin oo lagu duufsanin waxaa ka mid a ducada uu cali u sheegaya allaahuma hdinii wastadidnii ilaahu i hanuuni dariiqa xaqaana igu toosi ducadu caaisha u sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam leylata alqadr allaahuma acinnii calaa allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii iyo kuwo kale oo badan marka taasina waxay sheegaysaa markaa ducooyinkaa jawaamicu ducaa la yidhahdee kooban ee macnaha ballaaran uu nebigu caadaysan jiray ama asxaabta amray markaynu ku dadaalnay inay aqbalku inoo soo dhowaado idan markaa waxaad arkaysaa inuu yahay baabkani baab barasho u baahan
سرت أقبلك أيسر دواتو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة